qaasim suleymaani waa magaca ugu hadalhaynta badan dunida saddexdii maalin ee la soo dhaafay iyadoo la wada sugayo falcelinta ay dowladda Iiraan ka bixin doonto dhimashada generaalkeedii ugu weynaa ciidamada dhanka howlgallada dibadda oo ku baxay gacanta dowladda cadowga yihiin ee Mareykanka. haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa dhimashada qaasim suleymaani? dadka qaar ayaa aaminsan in qaasim suleymaani loo dilay sababa la xiriira weeraradii dhowaan lagu qaaday safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay dalka Ciraaq. xagga dad kalena ay u arkaan in Trump uu howlgalkan uga dan lahaa inuu isaga jeediyo weerarka uga socda dhanka gudaha Mareykanka. balse wax walba waxaa caddeeyay ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Adil Abdirabbu xilli uu khudbad u jeedinayay baarlamaanka dalkaasi oo uga hadlayay falkii lagu dilay qaasim suleymaani. Adil Abdirabbu ayaa si dadban uga hadlay sababta ka dambeysay dilka qaasim suleymaani iyo sidoo kale waxa ku soo beegay xilligan in dowladda Mareykanka ay fuliso falkaas. وللتاريخ أذكر أيضا بأنني كنت على موعد مع الشهيد سليماني في 8:30 من صباح استشهاده، وكان من المقرر أن يحمل لي رسالة من الجانب الإيراني رداً على الرسالة السعودية التي أوصلناها للجانب الإيراني للوصول إلى اتفاقات وانفراجات مهمة في الأوضاع في العراق والمنطقة. ra'iisul wasaare Adil Abdirabbu ayaa baarlamaanka ka hor sheegay in asaga iyo qaasim ay ballansanaayeen subaxnimadii uu dhacay dilku. ra'iisul wasaaraha ayaa warkiisa ku sheegay in qaasim suleymaani uu waday fariin uu ka waday dowladda Iiraan, taasoo jawaab u ahayd fariin hore oo ka timid dalka Sacuudiga, taasoo Sacuudigu ku dalbanayay in la dejiyo xaaladda dalka Ciraaq iyo guud ahaanba tan bariga dhexe. halkaa waxaa ka muuqata inay jirtay wadahadallo u socday labada dowladood ee ugu xooga badan mandiqadda waa Sacuudiga iyo Iiraan. wadahadallada waxaa dhexdhexaadin ka ahaa dowladda Ciraaq ee uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Adil Abdirabbu. haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sababta ay dowladda Sacuudigu wadahadal ula furtay dowladda ishayaan ee Iiraan. 14 Sebtembar sanadii tagtay ee 2019 waxaa weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu qaaday xarunta ugu weyn ee shirkadda Aramco ay ku leedahay dowladda Sacuudiga. weerarkaas oo aad u dhaawacay dhaqaalaha guud ee boqortooyada. weerarka kadib dowladda Sacuudigu kama aysan helin taageeradii ay ka filaysay dowladda ay saaxiibada yihiin ee Mareykanka, taasoo horseeday in dowladda Sacuudigu ay heshiis la gaadho ama wadahadal ay la furto dowladda ishayaan ee Iiraan si loo dejiyo xaaladda guud ee mandiqadda. haddaba Mareykanku sidoo uu arkaa nabad ka dhalata bariga dhexe. bariga dhexe oo nabdoon ayaa ka dhigan in gabi ahaanba ay meesha ka bixi doonaan saldhigyo dowladda Mareykanku ay ku leedahay dowladaha khaliijka. saldhigyada oo muhiimadoodu ay tahay inay ka ilaaliyaan dowladaha Carabta weerar kaga iman kara dowladda khatarta badan ee Iiraan. balse haddii uu heshiis dhex maro dowladaha Carabta iyo Iiraan, waxaa meesha ka baxaya baahida loo qabay saldhigyadaas. sidoo kale waxaa gabi ahaan burburaya heshiis dowladaha Carabtu ay hub kaga soo gataan dowladda Mareykanka, heshiiskaas oo sanad kasta ku kaca $100 bilyan. haddaba sababaha oo is aruursay dartood Mareykanku marna ma rabo inay degto xaaladda bariga dhexe. qaasim suleymaani oo haddaba noloshiisa inta badan ku soo qaatay furin dagaal ayaa markan wax uu sababsaday fariin nabadgelyo oo uu waday, balse ma uusan gaarsiin meeshii uu rabay oo waa la aasay.